halkan yaalla wadada loo furo waxa yaalla gurmadka dowladda turkiga ay sameeyso walaalaha Soomaaliyeed ilaahay mataqaanaa xariistii janna Allah siintii dhimatay inta kalena ilaahay caafimaad siiyo waxa dib taagan madaxweynaha Soomaaliya waxay korwey waxay fariiso madaxweynuhu kor taagan yahay si arkaysaa wax yar inta la baneeyo Allah wadada la baneeyo هنا هو هذا يا سعر كيسان من يا شعب الصوماليين دولة صوص gudaha diyaaradii ay u soo dirtay dowladda Turkiga waxa halkan goobjoog ka ah dadka in laga soo dejiyo waa caadiga ah waxaa jooga wasiiradii haddaad weynaysan kartaan xoogaa cadbarow saatanan ka dhiganaynaa xoogaa aansaan ka dhiganno si laynka idinkugu ballaarta
galo diyaaraddan waa diyaaraddii ugu horreysay ee dowladda Turkiga ay u soo dirto nooceeduna uu yahay halkaad arkaysaan Turkish Air Force ciidamada xilka dalka Turkiga ayaa iska leh waxay qaadaysaa dhaawacyadii dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay weerarkii baalnimada ahaa ee kooxda marin habowsan ay mataqaanaa la beegsadeen dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa dadkaani waxaan u malaynayaa inay ka mid yihiin qoysaskii iyo eheladii dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay intee u socotaan Turkiga dadkii ku dhaawacmaad ka mid tihiin soo maaha dadkooda maxaad u jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed haddii aad aragtay inay dowladdii Turkiga dadka Soomaaliyeed u soo gurmatay maxaad ugu baaqaysaa dadka kale ee Soomaalida ah ee dibadda jooga inay soo laabtaan oo dalkooda imaadaan aada u mahadsantahay dadka inay ka hor leexdaan صح مصدر كبوشيش سيئة دور كان ما تحكي سامي عليها سحبة telefondan joojiyni cabdiraasmi xabisha telefonkan jooji saxay u gaari jooji recording waay ma aha live ma recording waay san loo galeen maanta munaasabad ay ka qiimo badan tahay mid madaxweynaha live dadka ula تعالوا طلع معنا في الأرض جنوب البداية هل مرة توقف صور هذا في البداية يعني أنا صور مرة البيت مو بهنك حاول معنا أنا بس هذا اللي الميكروفون عن كلا يا متخانة
ujeedadu waxay tahay shaqada socota dadka inay arkaan anigoo shaqaynayada afra waxaa ila taagan kabtan xasan iyo xildhibaan daahir jeesow waxaad leedahay gurmadkan ballaaran ee dowladda turkiga ay shacbiga soomaaliyeed maanta maxay ku tusinaysaa macnaha maxay ka beddelaysaa qalbigaaga iyo qofnimadaada runtii waxaan ogaanay walaalahan keliya aan leenahay inay yihiin dukriga waan u mahadcelinayaa shukran aad iyo aad baad u mahadsantihiin gurmadkaan nala soo gaadheen meesha tan waxaa ka dhacay masiibo waaye masiibada qof kulu qaybsado baana kuu walaala maanta soomaaliya dhibka gaaray ciddii la qaybsata dhibkaas ayaa taariikhda ay xusi doontaa tirada dadka la qaaday ama aad wax ka saartay diyaaradda meel qof waa hadda 35 aan saarnay laakiin waa soo socdaa dhaawac kala soo socdo dhaawac waa badan yahay diyaaradda kala soo socdo markaas dowladda turkiga waxay noqonaysaa dowladdii ugu horreysay ee dhaawac kuwii ugu daray seriouska ayay noqonaysaa diyaaradda kalena way soo socotaa oo dhaawac qaadaysa